madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gille ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay gudoomiyaha sare ee shirkadda caanka cunnada iyo beeraha ee Civital Isab Rabeb. Shirkadaasi ayaa waxa in muddo ay ka howlgali jirtay jamhuuriyadda Djibouti waxaana ay saami ku leedahay maamulka marsooyinka iyo kalluumaysiga Djibouti. Xilligan waxay ku tala jirtaa in $40 ay ka hesho goobta ka cagan cashuuraha Djibouti. shirkadani caanka ee cunnada iyo beeraha Civital ee laga leeyahay dalka Algeria ayaa waxay tahay shirkadda koowaad ee ugu ballaaran qaaraddan Afrika iyada oo laamo kala duwan ka howlgasha. kulankan dhex maray gudoomiyaha shirkadda sare ee cunnada iyo beeraha ee Civital Isab Rabeb iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gille ayaa waxay kaga wada hadleen maalgashiga Djibouti iyo shirkadda abuurka ay hirgelin karto shirkadani. waxaa kulankaasi u joogay wasiirka beeraha, biyaha, kalluumaysiga iyo taranka xoolaha mudane Maxamed Axmed Cawaale iyo gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka cagan cashuuraha mudane Abubakar Cumar Xadi. gudoomiyaha sare ee shirkadda cunnada iyo beeraha Civital Isab Rabeb oo u waramay RTD ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo bandhigay rabitaanka ku aadan maalgashiga Djibouti ee waaxda warshadeynta cunnada iyo beeraha. waxa uu sidoo kale ka hadlay dhismaha warshadeynta farsamooyinka sokorta, saliidda iyo weliba cuntooyin kale kuwaasi oo laga dhisi doono dalka jamhuuriyadda Djibouti.